dowladda Soomaaliya oo guulo waaweyn ka gaartay difaaca dalka, dhulka, badda iyo bariga intiisaba. haddaba maxay tahay xogta ayaan halkan kula wadaagi doonaa marka si hore soo dhawaada daawadayaal muuqaalka share gareeya si qayb weyn markaasi ama meel weyn u gaaro. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaaradaha qumaatiga u duula ee markaasi ugu deeqday dowladda Talyaaniga iyadoo markaasi qayb weyn ka ahaan doonaan difaaca dalka iyo waliba sidoo kale qaybaha ama xuduudaha ee dalkeena ee Soomaaliya. waxaana sidoo kale maalmihii u dambeeyay si weyn ugu soo degayay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho diyaarado nooca qumaatiga u duula ayaana markaasi lagu arkayay in magaalada Muqdisho ka soo degayaan iyadoo markaasi qayb weyn ay ka qaadan doonaan haday ahaan lahayd ilaalinta xuduudaha iyo waliba sidoo kale ee dhulalka Soomaaliya. diyaaradaha qumaatiga u kaca waliba nooca dagaalka ee helicopterka iyadoo markaasi la arkayay in dowladda Soomaaliya burburkii kadib ay markaasi ku soo badanayaan diyaaradahan ay markaasi qaybta ka ahaan doonaan xoreynta dalka iyo waliba dagaalada reer ka dhanka ah al-shabaab. bulshada ku dhaqan caasimadda Soomaaliya iyo waliba soo kale guud ahaan geeyiga Soomaalida ayaa markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo waliba soo kale duqeymaha cirka markaasi lagu hay qayb ka ahaayeen diyaaradaha noocan oo kale ah inay qayb weyn ay ka qaataan. dowladda Soomaaliya ayaa burburkii kadib haatan waxay mar kale dib u bilaabaysaa in ay markaasi xoojiso qaybta difaaca dalka cirka iyo waliba sidoo kale badda iyadoo markaasi dagaalo kala duwan al-shabaab ay kula jirto. walibana waxaa markaasi si weyn loo hadal haya diyaaradahan qumaatiga u kaca ee dowladda Soomaaliya Talyaaniga ugu deeqday in ay markaasi door weyn ay ka ciyaari doonaan xoreynta iyo waliba sidoo kale guulaha waaweyn ee dowladda Soomaaliya ay gaarayso maadaama ay jiraan ciidamo markaasi u tababaran cirka, badda, dhulka. dowladda Talyaaniga oo markaasi qayb iyana ay ka noqon doonto mar walba sidii ay markaasi ay ugu garab istaagnaan lahayd dowladda Soomaaliya oo markaasi qayb weyn ka ah in markaasi qayb ay ka ahaato dagaalada ka dhanka al-shabaab ayaana mar walba ugu deeqayda si markaasi ay u caawin lahayd ama u kaabi lahayd xoojinta ama xuduudda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab oo markaasi qaybihii ugu dambeeyay lagu sii guudi jiro. tani waxa ay astaan weyn u ahaan doonta horumarka iyo guulaha waaweyn ee dowladda Soomaaliya markaasi ay ka gaarayso dib u dhisidda dalka iyo waliba sidoo kale difaaca qaranka iyo waliba guud ahaan dhisidda Soomaaliya badaheeda iyo xuduudaheeda iyo barigeedaba qayb weyn ay ka ahaan doonto. walina markaasi waxaa sii socota howlgelinta iyo waliba soo kale dardargelinta nidaamka iyo waliba hor u qaadida iyo waliba dhisidda Soomaaliya qayb ay ka yihiin diyaaradahan markaasi qumaatiga u duulay ee walibana nooca dagaalka ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya aad ugu soo badanayay iyadoo markaasi qayb ka ahaan doonaan aw markaasi kaalin weyn ka ciyaari doonaan amniga Soomaaliya tan iyo waliba burburkii kadib. haddaba su'aasha ugu weyn ee taagan ayaa waxa ay tahay maxay ka bedeli doontaa imaanshaha diyaaradahan qumaatiga u duulay waliba nooca dagaalka ah ee Soomaaliya ku soo badanayo. sidoo kale maxay markaasi qayb ka ahaan doontaa wada hadallada ama dooda culus ee u dhaxayda Soomaaliya iyo Itoobiya door intee leeg ayay ka qaadan doonaan haddii ay noqoto in Soomaaliya lagu soo xadgudbo. aragtidaada qaybta hoose ee faallada commentiga muuqaalkan share gareey.